Soomaaliya waa inaan qurux badan oo nin waliba doonayo Soomaaliya waxay maanta u dhuratay Sayid Maxamed Cabdulla Xasan sidii uu yiri yamyamiye qadaad weyn baa la iiga taaglay mid waliba wuxuu rabaa ama dalin yar ha noqdo ama mid awal hore aan kugu soo dhicin jirin ha noqdo inaanad fikir yeelanin sidoo u fikiro aad u fikirto sidoo u heeso aad u heesto sidoo u raqaso aad u raqasto sidoo u dhaanso aad u dhaansto oo adiga kuusan arkahaynin qof bini'aadmiyo aragti leh Soomaaliya markaas sidaas may ku sii jiri kartaa mucaarid iyo muxaafid qurba joog iyo qaran joog hal shay baa inoo yaala waxaynu u baahannahay qadkii Soomaalida inaynu soo celino walaalayaal Soomaaliya dad qablih bay ahaan jirtay 60kii waxaanu u heesaynay herar iyo hawaas wajeeray calanka ho abwaaninta Soomaaliyeed waxay ka gabiyeen booriga Suez diyaaradii kama qabaadaan kanaal Suez ninkii Ingiriis ahaa ma mari karo waa nin reer miyo Soomaaliya ku gabiyay markii Ingiriiski loo turjumo leeyahay war ninkani wuxuu leeyahay kanaal Suez waa laga adkaaday Ingiriiski oo yaa kaga adkaaday de Jarmalkii iyo xulufadii Talyaaniga war ninka bal soo qaaday buu yidhi kanaal Suez buu markab ku qaadu geeyay oo Soomaalidu uu sheeg inaan joogo aan wali meeshii la iga adkaanay Soomaaligu wuxuu ku gabiyay dhulka muunadii waa makiya guri Madiinaad madadaaladii waa inaad Yurub mashaaxda meeqaan jabtii waa intuu madowgu jooda waxaad moodaysaa inuu tagay Soweto iyo dhulka ninkaasi ama France iyo dhulka maaragtay quruxda badan iyo Yurub meelaha loo dalxiis tago aragtidiisu taas ay ahayd Soomaali u jahaynayo waxa lagu bedelay laga yaabay walaalaheena mucaaradkuna hayga raali ahaadaane aad xoojinayaan wala ina cunayaa wala ina liqayaa wala ina boobayaa warka kacay uqdad yururta qofkii Soomaaliga ahaa inuu noqdo waxaan leenahay maya dab baan leenahay ummad baanu nahay waagi halganka hadii aanu qablahayn ilaa maanta waanu leenahay